diyaaradaha waa waxyaabaha ay fududeeyeen tiknoolajiyada casriga ah waxaana ay sababtay in caalamka si fudud loogu kala safro laakiin waxa aad u adkaatay in diyaaradahani loogu safro guux la'aan marka laga hadlayo diyaaradaha waxa jira isku dhacyo dhanka hawada taasina waxa ay sababtay guuxa tirada badan ee diyaaradaha ka imaanaya marka ay diyaaradda hawada ku jirto mar walba waxa si ziyaada guuxeeda injineerada waxa ay il gaar ah ay ku eegayeen sidii looga takhalusi lahaa mushkiladani farsamo waxayna ogaadeen in xalka mushkiladani la heli karo waxaana laga helay shimbirta guumeyska ah shimbirtan ayaa ah marka ay duulayso mid aad u degan midda ayaa sababtay in shimbirtani loo yaqaano guumeyska il gaar ah lagu eego waxayna baalka hoostiisa ay ku leedahay baalal yaryar oo aan lahayn shimbiraha kale taasoo si caadi ah loo arki karo midda ayaa ka hor istaagaysa shimbirta guumeyska marka uu duulayo in halkaasi uu ka dhaco isku dhacyo dhanka hawada ah sidoo kale shimbirta guumeyska waxa uu leeyahay baalal jilicsan oo ka ilaalinaya marka uu duulayo in baalashiisa ay sameeyaan islis khubarada ku takhasustay naqshadeynta diyaaradaha waxa ay ka faa'iideysteen oo naqshada ka qaateen shimbirtan waxayna ku dhaqaaqeen inay isbedel ku sameeyaan diyaaradaha guuxooda tirada badan isla mar ahaantana in la joojiyo